midowga neto waa urur caalami ah oo dhanka difaaca waxaana iska kaashaday dalalka reer galbeedka. waa ururka ugu weyn dhanka difaaca caalamka. muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa aasaaska midowga neto iyo sidoo kaleeto xubnaha ka tirsan midowga neto, awoodda ay leeyihiin dhanka ciidanka iyo dhaqaalaha ay ku fadhiyaan iyo saameynta ay ku leeyihiin khilaafyada ka socda caalamka. kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta inaan guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddii aad horey nala joogtay fadlan muuqaalka like saara oo la wadaag asxaabtaada. kusoo dhawaada mar kale muuqaalkeena maanta. midowga neto waa isbahaysi difaac oo caalami ah, waxaana la aasaasay 4 Abriil 1949 iyadoo ujeedadu ugu weyn ay tahay in la iska caabiyo hanjabaadihii ka imaanayay midowgii Soofiyeed xilligii dagaalkii qaboobaa. neto waxay ku dhisan tahay iskaashi dhanka militariga, taas oo awood u siinaysa in neto laga baqo urur ahaan. heshiiska aasaaska neto sidoo kalena loo yaqaano heshiiska waqooyiga Atlantiga waxaa saxiixay 12 waddan oo xulafo ah, kuwaas oo ku heshiiyey inay iska difaacaan weerar ka imaada dowladaha kaleeto. qodobka ugu muhiimsan oo ay ku heshiiyeen wuxuu ahaa weerar lagu soo qaado hal waddan oo ka tirsan neto wuxuu ka dhigan yahay in dalalka neto ka tirsan kulligood lasoo weeraray. qodobkaasi waa qodob ka mideeyey dhammaan waddamadii ugu horreeyey ee aasaasay midowga neto. waxay ahaayeen 12 waddan oo ay kala yihiin Maraykanka, Kanada, Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Belgiumka, Netherland, Denmark, Norway, Ireland. dalalkaasi waa dalalkii ugu horreeyey ee aasaasay midowga neto. haddii aynu fiirino dalalka qaar ka mid ah ee gadaal ugu soo biiray, Turkiga iyo Giriiga waxay ku soo biireen 1952. Jarmalka waqtigaasi wuxuu u qaybsanaa Jarmalka qaybtiisa galbeed iyo qaybtiisa bari. qaybtiisa galbeed waxay ku soo biireen 1955. Spain oo ku soo biirtay iyaduna 1982. midowga neto dalalka haatan ku jira waxay gaarayaan 31 dal. waddankii ugu dambeeyey ee ku soo biiray waa Finland, waxay ku soo biirtay sanadka 2023. dowladda ku soo xigta ee is leeyahay way ku soo biiri doontaa waa Sweden. howlgalladii ugu muhiimsanaa ee ay sameeyeen ciidanka midowga neto waxaa ka mid ahaa dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey neto iyo midowgii Soofiyeed. kadib burburkii midowgii Soofiyeed ee 1991, nato waxay diiradda saartay ballaarinta xubnaha iyo dalalka ku soo biirayo midowga neto si loo ballaariyo awoodda neto. waxay weeraro ka geysteen dalka Afghanistan 2001 ilaa 2021, howlgal nabad ilaalin ah oo ay ku joogeen ciidanka midowga neto. sidoo kale Liibiya oo ay galeen 2011 weeraro cirka ah oo ay ku qaadeen kacdoonkii Qadaafi oo 2011 ka dhacay dalka Liibiya. qaab dhismeedka neto waxaa ugu sareeya hal nin, kaas oo ka soo jeeda dalka Norway. neto saameynta ay ku leeyihiin adduunka. khilaafka u dhexeeyo nato iyo Ruushka wuxuu xoogaystay kadib markii Ruushka uu qabsaday gobolka Crimea 2014. neto waxay Shiinaha u aragtaa tartamo istiraatiijiyad ah oo la tartamayo midowga neto dhanka dhaqaalaha iyo dhanka difaaca. dagaalkii Ukraine ee 2022, neto waxay taageertay Ukraine iyada oo aan si rasmi ahayn u taageertay dalka Ukraine. waxay gaarsiiyeen hub iyo dhaqaale oo isku difaacaan ciidanka reer Ukraine. haddii aynu eegno dhanka militariga ee midowga neto waa ururka ugu ciidamada badan adduunka. tirada ciidanka ay qabaan wuxuu gaarayaa 3.5 milyan oo askari oo diyaar u ah inay mar walba dagaal ay galaan. miisaaniyadda militari ee ay ku bixiyaan ciidanka 70% Maraykanka ayaa bixiya. midowga neto dhaqaalaha ku baxa madaxweyne kasta oo ka tirsan midowga neto waxaa qasab ku ah inuu bixiyo dhaqaalaha neto lagu difaacayo hubka iyo tiknoolajiyadda ay qabaan. neto waxay leedahay awood nukliyeer oo hogaamiya
dalka Mareykanka, UK iyo Faransiiska. Waxaa jira hub nuclear oo yaala saldhigyada dalalka Yurub uu dhigay Mareykanka. Diyaaradaha dagaal iyo hubka casriga NATO waxay leeyihiin diyaaradaha casriga ah ee F-35 iyo F-16 waxay adeegsadaan tiknoolajiyadii ugu dambeysay ee sirdoonka macmalka ah iyo nidaamka difaaca hawada uu haysto Mareykanka, kaasoo awood u leh inuu burburiyo wax walboo soo gala hawada meesha uu yaalo difaacaasi. Haddii aynu fiirino dhanka ciidanka badda, NATO waxay leeyihiin maraakiibta ugu awoodda badan adduunka, gaar ahaan kuwa ay qabaan Mareykanka iyo UK. Waxaa ku jira maraakiib dagaal kuwaas oo quusa iyo nidaamyada difaaca xeebaha. NATO waxay awood u leedahay inay isku xirto ciidamo kala duwan oo ka socda 31 dal oo ka tirsan caalamka, kuwaas oo fulin kara weeraro degdeg ah oo ka socda dhanka NATO awoodda dhanka siyaasadda. NATO waxay kaalin weyn ku leedahay diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamka. Heshiisyada iyo iskaashiga wadamada ayay u dhexeeyaan. Wadankii ka soo horjeesta waxay saarayaan cunaqabateen heer ay gaarsiiyaan wadankaasi dhaqaalihiisa inuu dhulka galo. Xubnaha NATO ugu awoodda badan, haddii aynu soo qaadano wadanka ugu awoodda badan NATO, waa Mareykanka. Waa dalka bixiya dhaqaalaha ugu badan ee NATO. Dalka ku soo xiga waa Turkiga. Turkigu waa dalka labaad ee ugu ciidamada badan midowga NATO. Waxaa ku soo xiga dalalka sida UK iyo Faransiiska, kuwaas oo leh hub nuclear oo wax gumaadi kara. Ururka NATO waxay wajahayaan caqabadooyin. Waxaa ka mid ah xakameynta Ruushka iyo saameyntiisa bariga Yurub. Sidoo kaleeto waxay wajahayaan kobaca awoodda military ee Shiinaha iyo la qabsiga hanjabaadaha cusub sida weerarada dhanka internetka looga soo qaado, iyo mararka qaar wadamada ka tirsan midowga NATO oo soo dhexgalo khilaafaadyo aad u adag sida khilaafkii u dhexeeyay Turkiga iyo Mareykanka markaasi oo Turkigu soo gatay nidaam difaacaadka S-400 uu leeyahay dalka Ruushka. NATO waa ururka ugu awoodda badan caalamkan aynu joogno. Haddaba daawade, adigoo fiirinayo macluumaadkaas aynu soo sheegnay, haddaba maxay kula tahay qaybta hoose ee kommentiyada inoogu reeb aragtidaadii muuqaalkeena maanta. intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa. Haddii aad nagu cusub tahay daawade, ha iloobin inaad nagu soo biirtid. Sidoo kaleetana haddii aad horey nala joogtay, ha iloobin inaad muuqaalka like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada muuqaalkeena maanta. intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa. intaynu ku kulmi doono muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.